ceelkii qarsoonaa sheeko Soomaali. Before we start with our next story, we wanted to thank you for watching us. We have just got 10,000 subscribers. Please keep sharing, liking, and subscribing. You are what keeps us going. daawadayaal intaynaan bilaabin sheekadeenna waannu idiin mahadnaqaynaa. waxaannu gaadhnay 10,000 oo subscribe taabtay. daawadayaal fadlan ku wada taageerada taabta like, subscribe amba share haddaydaan taabanin. beri hore waxaa jiray 4 reer oo ku noolaa tuulo yar. reerka koowaad way murmi jireen maalintoo dhan. reerka labaad waxay ahaayeen kuwo hunguri badan. reerka saddexaad waxay badanaa ku maqnaayeen sahamin oo kumay qancin waxay haysteen amba meeshay ku noolaayeen. laakiin reerka afraad waxay ahaayeen kuwo deggan oo samir leh, waanay ku raaxaysan jireen nolosha ay ku haysteen bulshadooda yar. goor habeena reerka saddexaad inantoodii ayaa u baxday sahamin. waxay heshay ceel ku qarsoon geedo dhexdood. reerkii ayay si dhaqso ah ugu soo noqotay. aabbo, waxaan helay ceel. halkeed ka heshay aabbo? ayuu aabbaheed yidhi. wuxuu ku qarsoonaa dhirta dhexdooda. reerihii kale may fogeyn goorta ay maqleen warka ceelka. 4 reerba waxay ka dhaansanayeen biyahooda ceelka. in muddo ah waxaa muuqatay in biyaha ceelku ay sii yaraanayaan. reer keliyahi ma rabin inay joojiyo isticmaalka ceelka maadaama ku dhowaa tuulada. umay dhaqaaqeen inay helaan biyo kale. ceelkaasuunbay ka cabbaan oo isku nadiifiyaan. maalintii dambe caaqilkii oo ogaa ceelka qarsoonaa ayaa la hadlay reer walba. caawa waa inaad gurihiinna joogtaan. ha ka dhaansanina ceelka habeenka oo dhan si biyuhu wakhti u helaan ay ku soo maaxdaan. reer kaste wuxuu oggolaaday inuu ceelka ka joogo, gaar ahaan sida caaqilku ugu digay in ciqaab daran la marin doono qoyska dhaafa sharciga. markii habeenkii madoobaaday, wiilkii reerka koowaad ceelkii wuu ka joogi kari waayey. caawa ceelkii waa inan tagaa si aan u helo biyo buuxa oo aanay reerku ku murmin cidda ceelkii kale ee bogaa aadaysa. 2 baaldi ayuu ka soo buuxiyey ceelkii. baaldiyada waan qarinayaa si aan loo arkin. wiilkii reerka labaad ayaa sidaasoo kale aaday ceelka. wuxuu ka buuxiyey 2 baaldi oo waaweyn. maadaama hunguri badnaa, wuxuu rabay reerkooda oo keliya inay biyo helaan. reerka saddexaad inantoodii ayaa aaday ceelkii. saaminta habeennimo iskamay joojin karaynin. anigaa ceelka markii ugu horraysay helay oo reerkayaga ayaa ku xaq leh biyaha siyaadada ah. maalintii dambe caaqilkii ceelkii ayuu ku noqday. ilayn ceelkii wuu guray. wuxuu sugay
inta reeruhu ka baxayaan guryahooda. dabeedna 4 guri kolba mid ayuu soo eegay. guriga koowaad wuxuu ka helay 2 baaldi, mid madhan iyo mid biyo ceelka laga soo xaday ka buuxaan. markuu tegay guriga labaad iyo ka saddexaad, sidaasoo kale wuxuu helay baaldiyo biyo ah oo ku qarsoon meel qofna arkaynin. laakiin markuu tegay guriga afraad, wuxuu arkay inay baaldiyadoodu qalalan yihiin. wuxuuna aqoonsaday in qoyska samirka leh ay xalay oo dhan gurigooda joogeen. waxay maqleen digniintiisii oo way daayeen ceelkii si biyuhu ay u soo maaxan karaan mar kale. 4 reer ayuu caaqilku ugu yeedhay goobka kulanka ee tuulada. arrinta ceelka ayuu u soo jeedinayay. dhammaan 3diina reer waxaad ka xaddeen ceelka biyo, anigoo idin yidhi ha la daayo caawa ceelka. waxaan ku ogaaday guryihiinna ayaan tegey. waxaan arkay baaldiyo biyo ah. mar haddii aad diiddeen amarkayga, waxaa laydinku khasbi doonaa si ganaaxa inaad joogtaan guryihiinna 30 maalmood iyo 30 habeen, cunno iyo biyo la'aan. waxaan rajaynayaa in xilligaa aad ka fikirtaan khaladka aad samayseen. reerkii afraad wuxuu ku yidhi, amarkaygii waad qaadateen oo ceelkii maydaan tegin. gurigiinnii ayaad xalay joogteen. qaata warqaddan oo fura marka tagtaan gurigiinna. warqaddii intay qaateen ayay gurigii ku noqdeen. markay gurigii gaadheen, warqaddii ayay fureen. waxaa ku jirtay gudaheeda khariidad. tilmaamaha khariidadda ayay reerku raaceen. kadibna in badan markay socdeen, waxay heleen ceel ay ku ag beeran yihiin dhirta midhaha leh oo badan iyo dhirta khudradda ah. waxay heleen cunto iyo biyo ku filan reerka cimrigooda oo dhan. reerihii lagu ganaaxay inay joogaan guryahooda cunno iyo biyo la'aan waxay barteen cashar lama ilaawaan ah maalintaas. waxa wanaagsan in la maqlo talooyinka odayaasha oo aan la samaynin waxyaabaha lagu yidhaaha samayn. qoyska afraad waxaa loo abaalmariyey samirkooda iyo u diyaar noqoshadooda inay raacaan sharciyada, taasoo bulshada faa'iido u leh. waxa wanaagsan in la maqlo talooyinka odayaasha oo aan la samaynin waxyaabaha lagu yidhaaha samayn. qoyska afraad waxaa loo abaalmariyey samirkooda iyo u diyaar noqoshadooda inay raacaan sharciyada, taasoo bulshada faa'iido u leh. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.